waxaan inta badan diradda ku saarnaa horyaalada kala duwan ee shanta ah kuwooda ugu xiisaha badan toddobaadkan kulamadii la ciyaaray natiijooyinkii soo baxay kooxaha waaweyn ingiriiska haddii ahaan lahayn talyaaniga jarmalka faransiiska iyo Spain ay inta badan dulmari doonaa kulamadii toddobaadkan la ciyaaray sabtidii iyo axadii iyo lagu daraba caawa kulamada dhiman iyo kuwii jadwalka ku jira bal la soo dhaweyn doonaa qaybiga la bal soo dhawow habeen wanaagsan toddobaadkan toddobaad weyn oo ah xiiso badnaa kooxaha waaweyn waa la dilay qaarkood way fakadeen qaarkoodna barbara ayay galeen Premier League ku bilaabi doona waa maasantay xasan adigii daawadayaashaba barnaamijka falaqeynta ciyaar bile kadib muddo weega oo ciyaaraha internationalka lagu maqnaa labadii usbuuc ee ugu dambeysay ciyaaraha caalamiga lagu maqnaa waa la soo laabtay haddii horyaalada la soo laabtana anagana waa soo laabanay waxaa moodaa marka ciyaaraha internationalka ciyaartooy qaarkood kooxihii waxay dareemeen daal fara badan kooxihii la dharada ahaa ee saddexdii kulan ee hore ee bilowga horyaalka ku bilowday guulo iyo sidoo kale bandhigi fiican qaarkood way joogteen kuwana ma joogteen marka usbuucan Premier League kulamadii afraad la leeyahay inta badan majority kooxihii waaweyn dhan way badiyeen marka laga reebo Liverpool oo maado usbuucan iyaga u taala daangada iyaga lagu cunaa usbuucan waa disha Nottingham Forest fiiri marka saddex kulan soo badiso oo shabaqaaga ilaasato oo 9 dhibcood soo hesho Nottingham Forest guriga kuugu imaato ha ku disho ceeb ka xun ma jirto macnaheedu waxay muujinaysaa kooxda saddexdii kulan ee soo badisay awoodda ku badiso ama awood la'aan ku badiso macnaheedu waxay tahay bandhigaagii waa joogteen weysa marka Liverpool hadda waxay noqotay 70% ama 60% awoodeedii inay isdhintay oo macna islo jaa durbaba eedeen fara badan ku timid waxa ugu horeeyay toddobaadkan leelay wuxuu ahaa kulankii Manchester United iyo sidoo kale Southampton laba gool darro oo Man United isugu xigtay kadib waxa mudaa in ciyaartoydii qaramadoodii aadeen dhaawacyo fara badan ma soo gaarin fidii ku soo laabteen Den Haag وأميسنا إنه بدينا يعني قصادة شيء دي بقى لما بقول إبرة أسد عليه لكن قول كله كوشي دارين Southampton أنا قربت كسر قادنا يا رجورو كبد دادي مانشستر وحكم تاعي كوحان يجوا مرك قول قال هار مرة هدي قول كسر رجورو لقى لها فريست هاف كوحان مدة مانشستر إنه يجوا لهاد مركا بنيك في عني موجين دلات قول كيس يجوه ريو هلي راشفورد قول كيس يجوه ريو دليه غرناجو قول كيس لبعضه دليه حل عيارات كان برونو إنه عادي مهين معلنك بوزيشن كندي سواء وصحي يعني وحي تاي وحيابا بناك كاجا إيمانية مرة قاركود waxay ku taasixitaan Den Haag waxyaabaha loo soo jeediyay waxa kamid ahaa kala bedelida ciyaartooyda ee positionada loo kala bedelo Bruno oo kamid ah ciyaartooyda ugu fiican ee Premier League ee qaarada Europe ee asaagiisa Bruno maxaa fiicnaya markuu qaranka u dheelay muxuu caawin u sameeyaa muxuu gool u dhaliyaa iyadoo intaas xidiga ay joogaan macnaheedu waxay tahay positionkiisu dheelaa waa ciyaareen kardhi kale waa ciyaartooyda ugu fiican Manchester hadda joogto sida darteed Manchester gool u qalmeynay heleen 3 gool eber ina clean noqoto waa aad u fiican tahay marka waxaan dhigi karaa Manchester waa in macallinka marka hadda leen abu helay maxaa diidaya marka inuu joogtay wada Casemiro keeda la dhigay Casemiro keeda la dhigay kooxda dheeraad uu ku yahay Casemiro oo cuslaaday mishaar badan oo kooxda ka cunaa cuntada uu ka dhameeyay sida darteed marka maxaa diidaya kaad iska geli ciyaartoy waxa jooga ka bandhig fiican ka dacayar ka neef fiican u gaardi bandhigiisa caadi ma ahayn aniga waxaan daawaday qaramada ku daawaday ninkan Uruguay BG kulan badan kuma daawan Sport Lisbon waa ku arkay kulamo Champions League ileeyeen Europe League xitaa waan ku arkay aad u fiican yahay talaabadiisa neeftiisa dhaqaaqiisa waliba gool dhaliye marka qaranka la joogo marka waxa qiimeyn karnaa marka Man United oo fiican aragnay usbuuci badisa Man United kardhikeeda leedahay hadaleenta ugu badan saxaafadda iyo iskale Den Haag marka waa inuu joogtay line up kar waa inuu wax ka bedelin mentality adu way fiican tahay next game marka Manchester waxaan dhigi karaa waa Europe League inay qiimeeyaan kadibna horyaalka Premier League haddii marka macalinka uu joogtay war ciyaartooyda ku kala saarnaadaan kuwana waxay leeyihiin bedel kuwana waxay leeyihiin line up leh yaa bedel leh George daafac ku bedel marka gool leedahay waa sameyn kartaa inaad daafac ku bedelato si aad ciyaartooy neef la adu keensato maadaama daafacan 70 daqiiqo ilaa 8 daqiiqo uu dheelay laakiin adaa gool lagu leeyahay gool ma raadinay marka waa inuu iska dhaafaa taasna wuu fahmay marka waxa moodaa marka macalinka sabar badan loo muujiyay labadii sano ugu dambeysay aan waxa dhigi karaa marka sabarka la badiyo dulqaadka laga badiyo guush way dambaysaa laakiin guushii Southampton laguma qiimeyn karo Den Haag mustaqbalkiisa waayo Southampton hadii ka timid championshipka laakiin Manchester hadii 3 gool eber ay noqotay Onana badbaadinta uu sameeyay kubadaha uu safe gareeyay cajiib ahaayeen marka waxaan qiimeyn karaa xitaa daafaca macalinka Onana wala soo baastami karaa labada daafac hadda dheelayso waayo Delight wuxuu kamid yahay ciyaartooyda soo bilaabo kubadaha daafacada soo bilaabo dhaliyaana waaye marka Martinez sidoo kale uu fiican yahay marka anigu waxaan qabaa ha u daayaan abkan qiimeyntiisana ha sii wato
ciyaartooyda bedelka uu ku keenayo muxuma Garnacho lan abu qalma Rashford inkastoo niid ahaan uu dilmay qarankii laga reebay sanadkii hore dhaleeceyntii saxaafadii u jeedisay niida ha u dhiso ha u sheego inuu yahay ciyaartooy ugu fiican kooxda ninka ugu mishaarka badan kooxda ayuu kamid yahay marka waxaan qabaa Man United gool wacan ay gaartay hambal yaalena kulamo kala jira balilo isla maalintaas la ciyaaray shanta galabnimo Liverpool Man City iyo kulankii ugu dambeeyay habeenkaasi Chelsea ka waran guuldarada soo gaartay Liverpool horta Liverpool sida uu sheegnaba macallin Slot waxa uu ka baran waayay meesha Premier League lahaa lama yeesan Ipswich Town dhunta ku galaysa lafa Ipswich Town fiiri waxay baraja la galeen waa Serbia ka timid waxay baraja la galeen Brighton oo Manchester United soo garaacay waliba guriga Brighton en garoon kale yiraahdo Amex Stadium kooxdan marka Premier League Nottingham Forest waxaan ognahay ciyaartooyda u joogto isku keenka ah inay credit-ka 1980 ugu dambeysay in Anfield soo badiyaan marka Anfield yaa jahannamo laga dhigin Anfield waa la gali karaa waa lagu soo baashaali karaa Manchester soo badinaysa marka xilli foga ugu dambeysay laakiin Nicky Van Dijk ahaa 67 kulan 70 kulan camal record haystay war Man City ka jibisay Manchester ka jibisay Chelsea ka jibisay Arsenal laakiin Nottingham Forest record ka jibisay Slot ciyaartooyda way daaleen bedelada uu sameeyay hal mar oo saddex bedel uu sameeyay oo kuwa fiicnaa goolku waxa laga dhaliyay gabagabadii ciyaarta war koox marka la dheelaysid oo kooxaha yar yar ka ah hada kaambi hore kala bixi weyseen si kanaafta kula xisaabtamay si kanaafsideeda ciyaarta xisaabtan waay kaambi horena akhris waay kaambi hore marka kooxda akhri weysid oo kula xisaabtamay si tabay wax ku dishaa kaambi hore wax akhrinay inta kadib si gool laga hormaray way u sarfeen dhag marka Liverpool u qalmeen guuldaradaas uma qalmo lama dhihi karo macalinka ciyaartooyda way daaleen Salah badhig ma joogtay karo Nunes ma joogtay karo Diaz ma joogtay karo awni markii jabsaday Manchester United aw toddobaadkii la soo dhaafay badinaayeen aw shabaqooda lama gaarin marka shabaqaaga Nottingham Forest yaa gaartay weyna ku dileen inta saaxiib ugu furan marka waliba Anfield ah Liverpool marka ceeb weyna soo gaartay isla jaawo fashilmay aniga waxaan la ahayba macallin Hollandees oo Premier League wax ka qabto macallin Holland Louis van Gaal arkay waxaan arkay Den Haag arkay Guus Hidiga arkay kaasaaba xooga dhaamayo FA Cup iyo waxbuu Chelsea u qaaday Frank de Boer marka intaasoo macallinba way fashilmayeen marka Slot oo Feyenoord ka yimid oo Liverpool oo Heritage oo qadiyad la oo koob laga rabo yimid oo suuqa iibsiga waxba soo gadan war xitaa tijaabi ninkan yaa Fadiki Kiyaza ku tijaabi dhaawac ma aha laba usbuuc Premier League jooga dib warqadii shaqada woo helay maxaa ka ugu haysataa كحتى مكجرين كان حتى كمجر لما صاحوا لنا مركا كل يقول ذري إسقى قادر يا مسؤولية مان سيتي كهذا الملها وقاعد أقول في عن بريمير ليجا وحاسس لي هاي لبعض الراسك رابويه أنا ما قبل مان سيتي أو صار وعد عد أفر كلنا الليل لبيت من بعد ويقول استين لكن اللي بعتي قبطة شبكة إذا السوقارية مركز تبع تاس اللي بعتي يقولون نقول كرتا يقول كي أودخ سياحة بدنا سيس كان اللي قدر لي وحقولنا برانفورد سيدي هرما إيفنتورن وكتجي معلنكي سيدي هرما كواحد يسكت له عيال سنتا إن كستو سوق الإيبسي قالين دور عيارتو سوقاتين لكن كواحد اللي ليسي ومان سيتي قرنك أجوبتين واتحاد إن بريج سوقاتها قول كوف في لمبا مركا هلان لبا كلن هاتريك كلن لبا جول كلن هالجول مركا وحمودا كوحا قاركود وكجول البدية هيبة لبا طبق ميا شنو طبق كوحود بريمير ليج وكجول البدية مركا هلان وحمودا توب سكور بريمير ليج ويان لقوما هيستو وقادي كرا وحول بعدي كرا لكن ما سيتو حامي سنة وكوحد أقول في عن حل عيارات كان جرسي عيارتي وياب كبدني ذي هيد أفر إيتوين لو كارا كان عادي لما كي كان حتى ولا وتاعي تايرات جلسة مركز وحكي كعودة أنتوني تايلور معلمينته وحكمي دي قرصارياشا ugu kaarka badan yellow kaarkiis jeebka ku jiraaba dhab garsoore san faul ma magaalada Manchester cadow waay marka waxa waay jabsiga ka mid jirtay ya ciila hayo marka waxa moodaa kulankaas waliba rigoora ay heleen Bournemouth oo badbaadiyay Martinez man of the match asa u qalmay xitaa laakiin Sanchez ciyaartii markuu soo galay wala xidiga ay dhaafay warninkaas ما هو على كسوعنا ما يا أوبشن وحكوا جرتوا جذا كرا لو بودي كرا ديف وبودي ما جرتوا واسي عد ونوسو معنا ونوم عاد هذيك وحين نوسو عاد وحاس بجيران جرسي نكاس ويكون هلين ما نفذ ما جوقاتي يقول عاونوا سمي شن فرصة أبوري أنت دقيقة وكجر كرا ما راح كدريم ويا ما تستحول علاسة كدريم ما يبريسكي سول عسنو يا أغلق ما ها ماشى وكل يجري لما هذا تغيير يجري مركم مجلس إمانة وحدي يجرون يا كود يجري مركب بريس خاب لقوا عنه ويا قاني رجال بيت كان وهذا كورة لوكاكو ويسبر مش ألبيون تاني هريت تعلق ما لذا كوحنا وكل يجري كلا
مانشستر يوتي وكعنه انتو كعنه هذا الرأي وكعنه يا نابولي مارادونا داوجر كلها ما بدل مارادونا اللي يقول marka qaabka bariiska loo cunay way yaqaanin marka anu waxa aaminsanahay Chelsea dhibcihi ee shay way u qalantay way dadaaleen laakiin qaladaad badan jiray ay sameeyeen waxa moodaa macallinkii waa la siiyay ciyaartoy badan nagis match ka noqon karto laakiin inay Bournemouth gurigooda ay tagaan ay ka soo qaataan guushil waxaan dhihi karaa marka guushaasi u qalmeen saddex dhibcood muhiim ay heleen oo yaa Allah ay ku gaareen marka mar hadii fakadeenba waxaan dhihi karaa garsooraas laakiin wax badan ku raadiyay Chelsea dhowr mar ay ka cawdeen waxaan xasuustaa kulan Liverpool iyo Chelsea wada dheelayeen si kala soo dhaafay miya Reece James Rosso uu siinay first half kulan Liverpool Anfield ay ku dheelayeen marka waxaan qabaa inta wax badan ay ka cawdeen Chelsea laakiin meeshan Soomaaliya ma aha waa dheelay ina ma dheelay ma dhigi kartid oo garoonka ka baxay laakiin waxaan qabaa Chelsea guushi gaarin u qalmeen kulli waxaan dhihi karaa marka usbuuc rafaad ayuu ahaa waliba 65 yellow card la bixiyay waa yellow card ugu badnaa ee taariikhda kubadda cagta dalka Ingiriiska la bixiyeen kan kulanka Chelsea laga inuu badiyo jaalooyinka kulankii Tottenham iyo Liverpool Tottenham iyo Arsenal waa ogeed waxa la bixiyay intaas oo yellow card la bixiyay marka waxaan qabaa اسبوعا وحو اسبوعي يلو كاركا ugu magac dar week of the yellow card aha marka waxaan qabaa kulamo adaga dhacay Arsenal away from home ku soo guuleyseen kulankii labaad way away ku soo guuleyseen way ugu soo dhaweeyeen guushan la dhan darbi marka waxa moodaa dhaawac ku soo dhaweeyay shaki maya dhaawac far badan galay u digaar iyo Declan Rice ani ilaahi ma ah waxa ku dhaleeynaysi ilaahi wax dhaawac maya asbaxnimada waa gool macawnimo jirto maya fiiri Arsenal sida uu mid gooli ma jirto maya horta kooxda ma laga badi dabuurnimo kooxda ma laga badi داوع dadka horta dhaawac ilaaha keen dhaawac ma laga ilaaha dhaawac ma keena dhaawac ma keena waa may Rosso ma keena inta la ma ah mid kale Rice Rosso qaata ma Oliver ma wiligiis ma qaadanaa ma Oliver feeri wiligiis ma qaadan balil ma qaadan ay galaan feeri Arsenal inay away ku soo guuleystaan horta Arsenal daafac galay shalay ugu horeys waa cabsaday maya tacticada Arteta hadii laga badin lahaa wuxuu heli lahaa dhaleeceen fara badan waxa la daafaca gasha kooxda Arsenal laakiin hadda saddex dhibcood oo helay Clichy oo helay Gabriel inaba caadi mehen gool madax ku helay as wuxuu gaadayay gool madaxa waayo Tottenham sikir waa lagu dhali waay Arsenal wax kasta lagu sameeyay gool waa laga dhali waay Saliba meeshii joogo Maguire ma joogo Madrid arabto ma ya Real way qaadan kartaa laakiin kooxu inuu jooga marka waxaan qabaa Maguire isku mid ma aha marka waxaan qabaa man of the match oo u qalmay inuu qaato xitaa ninkan yiraahdo waxaan qaatay Gabriel Jorginho bandhig fiican oo soo bandhigay kula next week hadda wixii aadi doonaan Atlanta Man City ugu xigto waa afar gool isku xigtay noqon doonta marka waxba lagu burin doonaa marka usbuucan waxa dhigi karnaa marka Premier League usbuuc waaliyo ahaa kooxii waaweyn dhan way wada guuleysteen marka laga rabo Liverpool oo mid noqotay barankeenu ugu sameynayay Liverpool Arne Slot ma tidakar dulqaad ma lahaba hal kulna laga badiyay jaa waxay bilaabeen waa lagu soo siray kan kulubu iska dhigi jiray war hal kulna laga badiyay kooxaha la iska tumoya maalin kastaba Everton maxaa ku dhacay laba koormano saddex loogu bedelayaa laba ciyaar isku xigto laba ciyaar isku xigto waliba Cambi hore ay ku hormarayaan Cambi labana saddex laba ayaa lagu bedelayaa marka usbuucan Premier League waaliyo aha kulli Champions League oo soo laabtay tartamada Yurub waxaan qabaa marka kulamo xiiso leh toddobaadkan way dhaceen kooxii waaweynana way guuleysteen marka laga reebo Liverpool